بسم الله الرحمن الرحيم dhamaantiin waan idin salaamay intaynu ku guda jirnay barnaamijkeena sirta waxbarashada waxa maalin walba la soo weydiin jiray su'aalo aad u fara badan waxa isku daynay markii ugu horeysay inaan qof waliba su'aashiisa aan uga jawaabno si gaar ah laakiin markii dambe ay su'aaluhu nagu bateen waxaan go'aansanay inaan xalqad u sameeyno kadibna aynu kaga jawaabno su'aalihii la soo weydiiyay marka maanta waxaan ka jawaabi doonaa shantii su'aalood ee ugu badnaa ee barnaamijka la soo weydiiyay su'aalaha la soo weydiiyay waxay u kala baxayaan laba qaybood qayb aniga su'aalaha la soo weydiinayay qaybta kale waxa ay ku saabsanaayeen barnaamijka ayaa su'aal naga weydiiyay su'aasha koobaad ee ugu soo laabashada badnayd waxay ahayd aniga igu saabsan takhasuskaagu muxuu yahay runtii haddii aynu anigu aan in yar kooban iska warramo anigu asal ahaan waxa aan ku takhasusay ama aan bartay dhowr shay oo kala duwan haddaan ka bilaabo xagga cilmiga ugu fadliga badan oo ah cilmiga shariicada islaamka anigu waxaan ka baxay faculty-ga shariica and law qaanuunka iyo shariicada kadibna markaan dhamaystay bachelorkii waxaan soo qaatay shahaadada sare ee master degree-ga anigoo ku diyaariyay takhasuska fiqiga waxaan ka baxnay jaamacadda Afriqiya Alcaalamiya haddana markaan dhamaystirtay masterkii waxaan u gudbay darajada kale saddexaad ee loo yaqaano PhD-da oo aan ku takhasusay tarbiya islaamiya ama Islamic education haddana waxa aan wadaa sidaan idin la wadaagay videogii hore aan soo dhigay page-ka haddana waxa aan wadaa PhD-dii labaad oo aan ku takhasusayo isla fiilkaygii fiqiga anigoo ka qaadanaya jaamacadda Afriqiya Alcaalamiya ee ku taal Suudaan marka laga imaado xagga shariicada anigu waxaan bartay dhowr takhasus oo kala duwan oo ay ka mid tahay faculty-ga caafimaadka oo aan ka baxay takhasuska public health officer-ka iyo faculty-ga business administration-ka oo aan ka baxay fiilka project management-ka su'aasha labaad halkeed ku nooshahay anigu waxaan deganahay gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama su'aasha saddexaad maxaad ka shaqaysaa طبعا anigu maadaama nahay nin wax bartay waxaan ka shaqeeyaa waxa weeyaan dadka ayaan wax baraa oo macallin baan ahay waxaan ka howlgalaa maadaama aan ku noolahay magaalada Boorama jaamacadda Amuud iyo jaamacadda kale loo yaqaano jaamacadda Badr Alcaalamiya sideen u xareysan karaa jaamacadaha aad noo soo bandhigtay website-keesa ugu fiican oo wax laga baran karaa su'aashani waxay ka mid ahayd su'aalihii ugu badnaa ee soo noqnoqday ee la soo weydiiyo waxay hayeen barnaamijka hore waxaan idin la wadaagay jaamacada Afriya oo adduunyada ku yaala oo ardayda si free scholarship muxuu ahaa ardayda wax u bara marka su'aasha ugu badan ee soo noqnoqotay waxay ahayd jaamacadaha sideen u xareysan karaa ama website-dadii aan soo bandhignay website-kii ugu fiican ee wax laga baran karaa hadday noqoto horta xareysiga jaamacadaha waxaan idin sheegay in jaamacaduhu ay soo geliyaan koorasyada website-da gaara marka simple haddaad rabto inaad jaamacadda xareysato waxaad sameynaysaa website-ka magaciisa ayaad ku qoraysaa YouTube-ka kadibna waxa uu ku soo dhigi doonaa dhammaan steps-ka iyo sida la isku register gareynayo kadibna si yar oo fudud ayaad jaamacadda u xareysan karaysaa haddii aniga la weydiiyo website-dadii aan soo bandhigay kii ugu fiicnaa keebu noqon karaa marka anigu aan eegay intii aan wax ka bartay walaalahana ra'yiga aan ka qaaday website-ka ugu fiican ee wax ka baran kartaa waxa weeyaan waa website-ka loo yaqaano Coursera marka sida ugu fudud Coursera isku diiwaan gelin karaysaa waa inaad YouTube-ka ku qorto Kliyata Coursera kadibna waxa ku soo dhigi doonaa sida ugu fudud ee aad isku diiwaan gelin karayso su'aasha shanaad barnaamijkii sirta waxbarashada baryahan maxaa loo soo deyn waayay horta aad baan ugu mahad celinayaa walaalaha itibay intii aan ka maqnaa in barnaamijka aan soo deyn mar kalena waan ka cudur daaranayaa inaan barnaamijkii aan la habsaamo waxaan filayaa hadda 2 toddobaad wax ka badan barnaamijkii meena soo deyn wax kalena ma ay keenin ugmaanaan talagelin in labada muddada dhan aan maqnaano laakiin waxa dhacday Kliyata mashquul aad u fara badan marka waxa lagu jiray saad la socotaan anaga xageegan waa waqtigii fasaxa lagu jiray bishii February dhinac marka aniga shakhsi ahaan waxay haystay sixitaankii maadooyinkii jaamacadaha dhinac kalena waxa aan difaacaynay buugii PhD-da ee labaad intii proposalkii marka dhinac anigoo buugina yaalo macallimiintiina noo joogaan oo aan difaacayno ayaan dhinaca kalena haddana waajibaadkii jaamacadda iyo imtixaan saxidii ayaa hal mar isku soo dhacday marka sida awgeed aad iyo aad waan idinka cudur daaranayaa barnaamijkiina soo deyn waayay insha Allah taala waxaan rajaynayaa
laga bilaabo toddobaadkan hadda aynu ku jirno in barnaamijkeennii wakhtigiisii aynu halkii ka sii wadi doono waxaan ku soo gabagabeynayaa tala ayna siiyeen walaalaha qaarkood ay soo jeediyeen oo ah barnaamijka waxaynu ugu talagalnay aynu soo deyn jirnay wuxuu ahaa barnaamij ku saabsan xagga waxbarashada oo inoogu magac darnay sirta waxbarashada barnaamijkii halkiisii baynu ka sii wadi doonaa laakiin insha allahu tacaala waxaynu samayn doonaa maalimaha soo socda waxaynu soo timin doonaa barnaamij maalinla ah oo magaciisa alla magac baxay faa'iido marka barnaamijkaasi waxaynu soo deyn doonaa isla waqtigeennii uun 2 duhurnimo waxaana u socon doonaa 1 daqiiqo ilaa 2 daqiiqo inta u dhaxaysa barnaamijka marka waxaynu ugu talagalnay iyadoo aynu wadno keenii waxbarashadana in aynu barnaamij kale oo faa'iido leh aynu bulshada u soo kordhino intaan aniga ay sadaqa in noqoto inta aan barnaamijka soo diyaarinayo ee aan idiin soo tabinayo maalin walba sidii dhaqanka ay ahaydna waxaan ku dadaali doonaa mowduucyada barnaamijkaasi ka hadlaya inay noqdaan dhammaantood mowduucyo cusub oo aan hore looga hadal inta badan aan waxaan sameeyaa youtube-ka Soomaaliga baan galaa mowduuca aan rabo inaan ka hadlo haddii aan ku arko in dhowr jeer laga hadlay ama walaalaha qaarkood ay naga dulqaadeen mas'uuliyadiisa aniguna ma soo celiyo in aan ka hadlo mowduucaas marka waxaan ku dadaalaa inta badan mowduucyada aan ku jirin youtube-ka Soomaaliga inaan soo geliyo oo aan ka hadlo sida awgeed waxaan filayaa insha Allah inaynu maalin walba kulmi doono 5 maalmood ee toddobaadka sabti ilaa arbaca aynu soo deyn doono barnaamijka faa'iido mowduucyo kala duwan aynu kaga hadli doono aad baan u jecelahay inaad igala qayb qaadataan barnaamijyada faafintooda iyo inaad wixii ra'yi aad ku darsataan iyo mowduucyada aynu jeclaan lahayn inaynu ku soo bandhigno waxaan aad u jeclaan lahaa inaynu ka qayb qaadano faafinta barnaamijka haddii aad ka daawanayso youtube-ka waxaan jecelahay inaad subscribe siiso channelka aanad sii faafiso haddii aad ka daawanayso facebook-na sida oo kale inaad page-ka like siiso barnaamijkana aad sii share garayso aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh